السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyin soo dhawaada habeen wanaagsan waa madal kale oo qurux badan oo aynu isugu nimid in aynu bulshada reer Kismaayo ee Jubbaland in aynu u soo gudbino madal ballaaran oo muhiim ah oo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda Jubbaland ay qabatay caaway taa oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda gaar ahaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo madaxda ka socota shirkadaha adeega bixiya bulshada ee korontada iyo biyaha sidaad ogsoontihiin bareer Kismaayo waxa caqabad weyn ka haysatay inta badan adeega biyaha iyo korontada oo dad badan ay ku tilmaameen in qiimahoodu uu aad u sareeyo dad badan ayaan su'aalo badan ka keenay taasina waxa ay sababtay in dadku ay cabasho ballaaran ka muujiyaan laakiinse wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dawladda Jubbaland oo waday dadaalo badan oo lagu doonayay in lagu xalliyo arimahaas ayaa keentay mashruuc biyo-gelin magaalada Kismaayo loogu sameyn doono kaas oo hagaajin doona biyaha qiimahooda oo aad u sareeyo magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda sidoo kale dawladda iyadoo ka duuleysa culayska dhaqaale ee korontada ka haysta waxa ay bilowday mashruuc kale oo koronto qoraxda laga dhalanayo oo solar system ah oo dijiyay ama laga bilaabay dhismihiisa duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo waxaana hadda uu marayaa heer gabagaba ah munaasabadana wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Jubbaland waxay ugu tala gashay in dadkeedu iyo sidoo kale ay helaan jawaab ama su'aal kasta oo qalbigooda ka guuxaya dadweynaha madasha fadhiya waxa laga codsanayaa marka hore in ay calaameystaan ama ay meel ku qortaan su'aal macquul ah haddii ay saameyn kugu yeelatay qiimaha korontada oo aad u sareeya ama culays kale oo xagga korontada haddii uu jiro sidaas si lamida haddii uu jiro culays dhanka biyaha ah haddii uu idinka haysto iyadana sidaas lamida waxa loo baahan yahay in aad soo bandhigtaan su'aal macquul ah oo la weydiin karo mas'uuliyiinta halkan fadhiya ee shirkadaha wakiilka ah ama madaxda ka ah sidaas si lamida dawladda laftirkeedu su'aal bay meesha ku yeelanaysaa oo wasiirku waxa laga yaabaa labada shirkadood si guud maamulka si kala marka loo eego canshuur ka qaado oo korjoogteeya oo sidaas lamida mashaariicda hadda soo socda iyaga lagu wareejin doonayo waxa loogu talagalay bulshada ugu adeegaan dawladda laftirkeeda su'aalaha ugu badan ay soo hoosgalay waxay tahay waxa ay ugu fiirsanayso bulshadu in ay kala hadasho shirkadaha sidii qiimaha qaaliga ah ee dadku ay markaa dareemayaan in hoos loo dhigo marka dhammaan arimahaas ayaa is soo hoosgali doona haddii ay baqadaro oo la doonaya dadku in ay ka jawaabaan oo amaba ay weydiiyaan mas'uuliyiinta mar kale soo dhawaada wad mahadsantihiin inta halkan fadhida ee doonaysa inay su'aal weydiiso shirkadaha iyo inta kale ee daawanaysaba aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa marka hore inta aan su'aalaha u gelin waxaan rabaa dhowr su'aalood inaan min hal su'aal weydiiyo ka qaybgalayaasha madashan ee doonaya laftirkoodu caawa in ay ka jawaabaan su'aalo badan oo dadkii ay u adeegayeen ka guuxaya waxaan ku bilaabayaa wasiir Baraki ayaa inala jooga sidaas lamida waxaan la jooga Axmed Cabdiraxmaan Kayse oo waska madax ka ah shirkadda korontada weeye sidaas lamida waxa dhinacayga bidix fadhiya maamulka sare shirkadda Jubba Water Supply ama dadka u yaqaanaan Haadweyne Khaliif Saleeman ayaa dhinacayga bidix fadhiya waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan su'aasha koowaad ku bilaabo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda Jubbaland wasiir Baraki soo dhawow bal marka hore bulshadaada la wadaag sababta keentay maantay in madashan la qabto iyo sidoo kale saameynta waad ogtahay bulshada inay ku yeesheen biyaha iyo korontada waxa keenay in dawladdu ay bulshada ku daawato awalan ilaahay baa iska mahad leh marka xigta waxaan aad u salaamayaa bulshaweynta reer Jubbaland gaar ahaan inta nagala soo qayb galay xafladan galabta haday yihiin mas'uuliyiinta kala duwan odayaasha dhaqanka waasada wasiirada xildhibaanada guddiyada arrimaha bulshada haweenka dhalinyarada dhammaan bacda salaam kulankan waa laba isa saaran waaye mid wuxuu ahaa kulan sanadeed ay wasaaraddu sanad walba inay qabato waqtiyadan oo kale waxaa lagu jiraa bishii 12aad baa lagu jiraa sanadka 2025 baa sii dhamaanaya waxyaalo tiro badan ayay wasaaraddan fulisay January ilaa iyo haddadan inaan bulshada la wadaagno qaybaheeda kala duwan
mashaariicdii kala duwanaa ay dowladda Jubbaland fulisay maaha kuwa ay hay'adaha fuliyay kama hadlayaan waxaan ka hadlayaa kuwa ay wasaaraddan qaybta ka ahayd design-kii lahayd curintii lahayd mobilization of resources kii lacagtii ay raadisay donorskii ay u hortagtay ay tiri baahi baa meeshan ka jirta ilaahay mahadii ay fankii u soo heshay ay dad u dhiibtay oo la fuliyay oo aan ku faani karno oo dhigi karno mashruucan annaga fulinay ama hay'ad hebel baan u fulisay inaan dadka horta la review garayno oo aan u sheegno degmooyinka Jubbaland dhammaantood waxaan u malaynayaa dhalinyaradii agaasimayaasha ahaa ee hadlayay degmo kasta shaqadii laga qabtay hadduu ceel yahay iyo hadday war tahay iyo hadday system biyo tahay ayay maanta soo bandhigeen wixiina waa wax la taaban karo waaye maaha wax oo la iska sheeganaya maaha horta kulanka ujeedadiisa koowaad waxay ahayd in bulshada lala wadaago shaqadii ay dowladda Jubbaland gaar ahaan wasaaraddan soo qabatay sanadkii 2025 qaybtiisan xigta ee bacda al-maghrib noo bilaabanaysa waxaan rabnay in shirkadaha korontada iyo biyaha labadan qayb ay wasaaraddu maamusho biyaha iyo korontaduba hadda waxay noqdeen qaybo aasaasi ka ah noloshii bini'aadanka biyo la'aantii hadda cid noolaan karta ma laha noloshii ilbaxnimada ayaduna waxaa qayb ka noqotay in koronto la helo marka labadii shirkadood ee gacanta ku hayay oo iyaga maalgashtay oo dowladdu aysan weli wax capacity building ah ama capacity injection ah ama dhaqaale aysan ilaa iyo haddadan aysan u dhiibin wax donor oo lacag siiyeyna uusan jirin laakiin niman ganacsato ah oo maalgashtay ganacsigoodii biyihii magaalada keenay korontadii magaalada keenay su'aalo tiro badan oo aniga ka jawaabi karinna maalin walba la weydiiyo ayaa waxaan ka codsanay inay bulshada hor imaadaan su'aalahan faraha badan ay dadkuna weydiinayaan haddii ay tahay maxay korontadu qaali u tahay iyo maxay biyuhu qaali u yihiin annagu wax badanna waan ka ognahay laakiin waxaan ka doorbiday in maareeyaasha shirkadda korontada iyo kuwa biyaha iyagu ay ka jawaabaan marka qaybta xigtana waa qaybtaas waxaan siinayaa midigta ku soconaya Kayse Cabdiraxmaan Kayse oo ah Axmed Cabdiraxmaan Kayse oo ah maareeyaha shirkadda korontada ee Wesco laftirkiisu shirkaddu howlo badan bay dadku u qabataa oo ay ugu horeyso adeeg koronto 24 saac ah oo aan marnaba go'eenin oo daqiiqad iska daayay albarqsi shirkaddu aanay hawada ka bixin taa beddelkeed dadku laftirkoodu ma arkaan ahmiyadaas iyo muhiimadaas sidaas la mid ah dadku waxay leeyihiin weli su'aalay qabaan Kayse soo dhawow dadka reer Kismaayo ee halkan fadhiya ee su'aalaha ku weydiin doona oo mas'uuliyiin iyo shacab isugu jira maxaad u faahfaahin lahayd oo shirkadda korontada Wesco ay bulshada u haysaa ku faraxsanahay inaan maanta hor imaado macaamiishayda ama dadka adeegyada siiyo runtii waa wax lagu farxo in aan helno dadweynaha waxa ay qabaan ama kaga dhex guuxayo diyaarna waxaan u nahay maantay ama caawa waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno su'aal kasto ee qabaan oo service-ka aan hayno ku saabsan waxaan ballan qaadaynaa ayadoo oo ma garanaysaa ixtiraam iyo uu ku jiro isxilqaad inaan wasaaraddeena khayr Allah siiyo howlo badan oo dadka cabashadooda waxa u badan oo maleynaya sicirka xaqiisa aadanna waa taabtay marka insha Allah wasaaraddeena waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inay ka shaqeynayso sidii korontada loo dhimi lahaa إن شاء الله بإذن الله الكريم وأنا بلاون دونتا سنة كان بلاو جيس إلى هيدا كيس إن شاء الله. كيسة قد ما تيجي هاي ماريها شركة كورنتادا ويسكو مركن خليف سليمان أيها دين عيا بدح فلية أو استجنا لفتر كيسو ماريها كشركة بيها بحسا جبا ووتر سبلاي dadka qaarkiina haadweyne u yaqaanaan maaraya soo dhawow shirkadda biyaha haadweyne amaba Jubba faahfaahin guud naga sii adeega dadka ay u hayso reer Kismaayo iyo nawaaxigeeda bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantihiin wasaaradda tamarta iyo biyaha aad baan ugu mahadcelinaynaa fursaddan caawa ayna siiyeen inay dadka aan isxog wareysano waxaa la yiraahdaa nin xog hela tala hela haddaanu qofku war hayn waxa weeyaan de war ma hayo marka inaan dadweynaha kala war helo oo is wareysano oo meeshay wax naga tabayaan waxa laga yaabaa annagana orodka meesha u dambeysay inaan joogno iyaguna ay cabanayaan oo isleeyihiin war dadka maxay saa u yeeleen biyaha maxay lacagta uga dhigeen biyuhu maxay u soo daaheen inay iyaguna cabashooyin qabaan marka
runtii fursad bay noo tahay inaan dadka iswaraysanno oo inta noo imaanaysay oo cabashadoodana soo gaarsiinaysay in kooban bay ahayd marka inta tani waxay ka mid noqon kartaa ama ka wakiil noqon kartaa mujtamacii magaaladan ku noolaa ayay wakiil ka noqon kartaa akhbaartana gaarsiin kartaa wasaaraddana waa mahadcelinaynaa insha allah dadkana cabashooyinka ay qabaan si hufan oo sax ah oo xaqiiqda waafaqsan baynu uga jawaabi doonaa insha allah waxaana rajaynayaa inaan markaa qof walba wixii uu qabay uu ka biskoodo oo halka caafimaad uu kala tago waa mahadsantahay dadka adeegyada u bixisaan maxaa ka mid ah adeega aan bixinno waa biyuhuna waa noloshaas biyaha lagu nool yahay ayaan dadka siinaa oo runtii sida ambalaaska u shaqeeya waxaa naga warqaba ciidamada booliska waxaa naga warqaba nabad sugidda waxaa naga warqaba dadka habeenkii soo jeeda dadkaasaan is aragnaa shaqooyinka kaloo dhan oo laga rawaxo bini aadanku qabto intuu maalintii qabto habeenkii ka rawaxaa laakiin annagu habeen iyo maalin baanu shaqaynaa waa waxyaabaha dad badanna way ogyihiin oo hadda meesha fadhiya oo habeenkii waa is aragnaa guryahooda iyo markay xaaladi ka dhacaan marka annagu waxaanu ka shaqayno waa biyaha dadkaanu biyo siinaa biyahaasaanu ka shaqaynaa waayahay aad baad umahadsan tahay khaliif Suleymaan su-aasha jawaabta saxda ee dadka uu siiyay dabcan habeenkii baan shaqeynaayo nabad sugidda iyo booliiska anagu wuxuu ka wadaa haddaa idiin sii fasiro habeenkii baa meel biyaha ka go'ayaan shirkaddu ma istaagto habeen iyo maalin 24 saac way shaqeysaa waa macnaheedu ciidankuna dee waa heegan habeen iyo maalinba ma nastaan waayahay khaliif aad mahadsan yahay markan waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada xaggeeda u wareego qofkii su'aal qaba gacanta ha taago wiilka shaatiga cad baa gacan taagay isagaa siinaynaa hadduu ay baqadro mudane wasiir wasaaraddu maxay tahay doorkeeda rasmiga ah ee ku aadan xakamaynta qiimaha biyaha iyo korontada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay su-aasha xigta waxay tahay sidee ay wasaaraddu ugu jawaabaysaa cabashooyinka ka dhanka ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ee danahooda macashdoonka ah ka hormariya danaha bulshada su-aasha kale waxay tahay mudane wasiir sidee ay wasaaraddu u hubisaa in shirkadaha bixiya adeegyada tamarta iyo biyaha ayna ku takrifalin bulshada su-aasha ugu dambaysa mudane wasiir waxay tahay wasaaraddu ma ka warqabtaa in shirkadda wesco ay qaado $7 ee qiimo go-an oo aan ku xirnayn isticmaalka korontada kaas oo ka hor imaadsan ama diidaya mabda'a ah bixi inta aad isticmaashay ama pay as you use muxuuse ka qabaa sharciga siyaasadda ee tamarta haddii aan wasiirka tiis intaa ugu gudbo wakaaladda biyaha haddii ma fadhiso waa ka soconaya wakaaladda biyada waxaan u gudbayaa shirkadda wesco wesco waxaan weydiinayaa maxaa saldhig u ah qiimaha sare ee korontada ee ay bixiso wesco ma jiraan qiimo ay la wadaagi karaan bulshada sidee shirkaddu u tixgelisaa dadka danyarta ah iyo xarumaha bulshada sida iskuullada isbitaalada marka la eego ama marka laga eegayo dejinta qiimaha korontada maxaa sharci ah ama heshiis ah oo ogolaanaya in wesco ay qaado $7 oo go-an oo fixed rate ah xitaa marka aanu jirin isticmaal koronto guriga haddaan koronto laga isticmaali lahaa $7 oo go-an ay qaadaan qiimaha go-an ee qarashka qiimaha go-an ee qaadaan ee $7 ah ma adeeg ma qarash adeega service charge miya mise waa faa'iido toos ah oo shirkadda gaar ugu dhacay ileen servicesku lacagta ku qaataan waa la ogyahay guri xiran oo $7 laga qaado waxay ku baxday maxay yihiin wesco diyaar ma u tahay in ay la fadhiisato wasaaradda iyo bulshada si loo qaabeeyo qiimaha go-an laguna saleeyo isticmaalka dhabta ah ee korontada shirkadda jubba aan soo gudbaya laba su-aalood aan weydiinayaa shirkadda jubba waxaan weydiinayaa bulshada waxa ay helaan biyaha waxay u helaan biyaha maalin dhaaf waxaa sheegtaa xaafadaha qaar inay tahay laakiin magaalada oo dhan maalin dhaaf ay u helaan maalin dhaafkaas hal ma u haysaan si ay dadka biyuhu wada helaan su-aasha ugu dambaysa oo idin weydiinaya waxay tahay biyaha intayna soo dhiceen ka hor aariya dadka kusoo furtaan oo dhaqaajiya saacadda cabirta qiimaha aariyadaas soo baxda way dhaqaajisaa saacaddana waxay ku kordhisaa tiro ma aariyaad naga gadaan mise biyaad naga gadaan ayadan xal uma haysaan waa maasantiin waayahay hala aamuso waxaan codsananaa ilaa aamuso oo jawiga la soo celiyo waayahay jawaabahan gelina marka su-aalaha samow aad u mahadsan yahay sida wanaagsan su-aalaha macquulka ah oo u soo gudbiyey dabcan waana waxyaabaha dad badan qalbigooda ka guuxaya waayo waxaa markhaati ka ah sida loo wada sacbiyey waayahay waxaan ku bilaabayaa marka wasiirkan ku bilaabayaa mise korontadan ku bilaabaa waayahay wasiirkan ku bilaabayaa maadaama
su-aalo adag la weydiiyey wasiirka oo ku tacalluqa arrimahan wasiir soo dhawow su-aasha samow labada ah u malaynayo maxaad uga jawaabaysaa waay waa mahadsan tahay samowna waan salaamayaa asxaabta kale ee la su-aalaha ahna waa soo dhaweynayaa su-aashu waxay ahayd qiimaha korontada door nooceed ku leedihiin bay ahayd qiimaha korontadu waa ka warqabnaa wasaaradda iyo shirkadda korontadu waa horey ka wada hadleen waxaa lagu jaangooyey qiimaha maanta qarashaadka ku baxaya waxaa la rabaa inay dadka bulshada reer Kismaayo ogaadaan adduunka korontadu waxaa laga dhaliyaa nuclear baa laga dhaliyaa meelaha qaar oo aad u raqiisiya meelaha qaar waxaa laga dhaliyaa hydroelectric power ama biyaha laga dhaliyaa qaar waxaa laga dhaliyaa solar baa laga dhaliyaa Soomaaliya korontadeedu waxaa laga dhaliyaa generators ama motoro diesel generators bay waliba yaa laga dhaliyaa marka waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan gaariga shidaalku isticmaalayo kale ay korontadan isticmaalaysaa oo ay ku socotaa qiimaha korontadu marka Kismaayo waxay ku jirtaa Soomaaliya magaalooyinka ugu raqiisan bay ku jirtaa ani waxaan ka warqabaa degmooyin iyo magaalooyin korontadu halkii kilowatt uu $2 kor ka yahay magaalada Kismaayo price-ka ugu sareeya aan ka warqabno waa 70 senti meelaha qaarna 60 bay siiyaan meelaha qaarna 50 bay siiyaan waxaa marka annaga doorka aan ka qaadan doona ayaa waxay tahay korontadan hadda aan haysano dad ganacsata ayaa maal gashtay iyaga iska leh annaga marka inaan wax ku darsanaa rabnaa waxaan hagaajinay proposal fara badan oo korontada sidii lagu sixi lahaa ah waxaa ka mid ah inaan hadda keenay magaalada 2 megawatt oo koronto ah oo telefishinkan dhinacayga ah ee maanta oo dhan gasgidgidinaya wuxuu soo saarayaa planti koronto dhalinaysa oo hadda la maalgeliyey oo maanta in korontada gridka lagu xiro la rabay laakiin aan dib u dhignay shirarka Kismaayo ka socda awgood marka korontada markaan keeno shirkadu waa wada fariisan karnaa qiimuhuna saameyn baan ku yeelan karnaa laakiin waqtigan xaadirka ah si aan ku niraano warwesko 70 sent bedela oo 60 ka dhiga oo 40 ka dhiga way adag tahay laakiin markaan wax ku darsano yaan qiimaha dhimi karnaa roolka labaad ayaa waxay tahay ma leedihiin complaint response siga Soomaalida hadda inta badan aan isticmaalno waa iska informal dadku meel walba kugu istaajinayaan xafiiska lagu imanayaa cabashooyinka tirada badan ee soo gaaro waan haynaa shirkadana waa u gudbinay Wesco hadday tahay baalooyinka hadday tahay meel inay outage ka dhaco ama korontadu ay ka danto marka waa ka warqabnaa cabashooyinku wixina soo gaarana isla markiiba annaga iyo shirkadu waa isku furannahay wada shaqeyn xag buuxdaan leenahay wixii markaana soo gaaray right away waa u sheegnaa wayna xaliyaan sharciga korontadu waa qabyo draft buu marayaa annaga ka wasaarad ahaan waan soo hagaajinay waxaa la rabaa marka in loo gudbiyo qaybihii kala duwanaaye dawladda hadday tahay baarlamaankii iyo hadday tahay xukuumaddii so insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhowrka bilood ee soo socoto in sharcigii ugu horreeyey ee korontada oo wasaaraddan ay soo propose garaysay bulshadana ay input badan ku leeyihiin inaan soo saari doono madaxweynuhuna noo saxiixi doono waa mahadsantihiin saddexdaas su-aal baan lahaa wan waay waxaa jirta ku takrifal awoodeed baa jirta lagu yiri la weydiiyo sama ku weydiiyey ku takrifal awoodeed hadba sidii loo qeexay ku xiran tahay ani kama warqabi wax ku takrifal awoodeedana ma jiro waxaan waa ganacsi waaye ruuxa mar hadduu badeecadiisa suuqa la yimid oo uu yiri intaan aan kaa gadayaa haddee dadku waxay awood u leeyihiin inay ama gataana way awood u leeyihiin inay iska daayaanna way leeyihiin laakiin ku takrifal awoodeed oo annaga ka warqabna ma jirto waayahay aad u mahadsan yahay wasiirka waan filayaa in su-aalihiisa ma weydiiyey inuu ka jawaabay weli barnaamijkeenan ayaan ku guda jirnaa su-aalaha qaybta dambe usoo laaban doonaa dadkan waxaa laga codsanayaa su-aalaha inay soo koobaan oo halhal ka dhigtaan maadaama dadka ay badan yihiin waxaan siinayaa Wesco Kaysa dhinacayga fadhiya midig Kaysa haya dhowr su-aalood baa hor yaala oo shirkadda la weydiiyey soo dhawow samow waa salaamayaa samow waxaan jeclaan lahaa horta marka hore inuu xog rasmi ah iyo qaababka aan wax u gadno inuu horta ka warhayaa ficneed inta markaan kaga gudbo dadka customerka aan hayno oo aan adeega u fudino waxay dhan yihiin boqolkiiba 80 ka mid ah $7 aan ka qaadnaa magaaladana inay shidnaataa la rabaa shidaal baa baxayo bareeska meelaha bulshada ay isticmaasho sida masaajidada oo kale iyo
بريس gooniya leeyihiin 50% aan ka qaadnaa waa wax cad marka waxaan fiicnaan lahayd samow inuu ka warhayo xog rasmina uu ka warhayaa fiicnaan lahayd ku tarifal buu sheegay samow waa ku mahadsan yahay siduu wax u arko laakiin xaqiiqadu waxay tahay xafiis baan leenahay oo la yiraahdo daryeelka macaamiisha oo wax kale aan qaban qofkii cabanaya kaliya uu taga midda heshiiska oo $7 qofka oo gurigiisu xiran yahay ikhtiyaar uu leeyahay qofkaasi waxa la rabaa markuu xafiiska yimaado waxa la leeyahay heshiis baa la hor dhigaa waxa la leeyahay anaga motoraan wax ka soo saarnaa haddii aad wax ka yar 10 watt ama 10 kilo wax ka yar haddaa isticmaasho waxay noqonaysaa lacagtaada $7 heshiiskaas uu galaa heshiiskaas ana ka saxiixnaa waana haynaa hadduu rabo walaalkeen waxaan ka codsan lahayn horta bal inuu xafiiska noogu yimaado oo waxaan meesha ku haynaa arko serviceka aan samayno arko qofka haddii hataa ay korontada ka go'do saq dhexe waxaan leenahay lambar halkaa ku qoran 533 oo har iyo habeenba lagaaga jawaabayo muddo 3 daqiiqana waa ku xalinaa waxaan jeclaan lahaa haddii customerkayga joogaan inay ii marqaati furaan oo markay soo wacaan sida loogu jawaabo ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto in aad arintaas waxaa fiicnaan lahayd in aad ka jawaabtaan arintaas aniga waxaa iga fiicneed in aad idinka ka jawaabtaan marka ku takrifal wax la yiraahdo hadduu noo qeexi karo way fiicnaan lahayd ku takrifal ma jirto xafiis dhan baan u furnay shaqaalaha ka shaqeeyo qofka gacan faraa lagu soo dhaweeyaa marka bal xafiiskana soo booqdaa macaamiisheena inuu yahay baa fiicnaan lahayd waayahay aad baad umahadsan tahay kayse dabcan ku takrifal dadku waxay u yaqaanaan badanaa dadku in dee si qasab ah $7 haddaadan bixinin korontada waa lagaa jaraa haddii tusaale ahaan bishu ay kula gaarto 5 ama 10 oo dadka qaar mushaarka ku soo daahaa shirkadda awood bay adeegsatay oo korontadaas kala jaraa marka dadku waa iska dan yar qaarkood waxa laga yaabaa inay garbarti iska yihiin oo ayuuto ay ku jiraan ayuuto isaga bixinayaan marka soomaha boono ka wadaasaan rajeynayo samow dadku in loo qafiifiyo oo xataa maalmaha wax loogu daro inta korontada laga jar lahaa xataa haddii korontada laga jar waxaa jira ganaax lacageed oo $10 ah oo shirkad dadka ay ka qaado taas laftirkeedu waa ku takrifal awoodeed waaye taa maxaad uga jawaabi lahayd waa mahadsantahay ha saas hadduu u qeexi lahaa waxbaan ka oran lahaa horta anaga $10 ma qaadno arrintaasi waa hal soo xaqiijinayaa wax $10 qof koronto haddii laga jiro aan qaadno male qofka hal bilna kagama jirno 2 bilood hadduu gaaro oo 2 bilood ay dhammaato 15 casho aa loo sii kaadiyaa markaasaa laga jiraa ama 10 casho aa loo kaadiyaa marka waxaan jeclaan lahaa bal xogta aan ku shaqeyno inaa ogaataan laambadda inay shidan tahay howl badanaa loo maraa 80% macaamiisheena ka mida $7 aan ka qaadna sidee u malaynaysaa marka magaalada inay shinaataa rabtaa waxaa laga yaabaa somehow inaan kabnaa dhici karto shidaalada oo noo imaanayo oo gees aan jirno aawadeed ama gaadiidka siduu noogu yimaado oo yar baa laga yaabaa mar inuu shidaalka cirka ku dhigo waxaan ku gadanay fuusto kaliya 250 magaaladana ma demin marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa xaqiiqada in mar walbaba loo dhawaado insha Allah soo dhawaada markan waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo maamulka shirkadda Jubba shirkadda biyaha ee Haadweyne balse uga jawaabo su'aalihii la weydiiyay soo dhow waayahay waa mahadsan yahay walaalka su'aashana soo weydiiyey waxaan filayaa su'aashiisa waxay ahayd biyaha maalin dhaafka sax weyn maalin dhaafka horta ma aha sida uu soo u sheegay maalin dhaaf magaalada dhan ma aha magaaladii maalin walba biyaha cabaysay way joogtaa sidii saaxiibka Axmed Cabdiraxmaan sheegay anigana dadkaas ay marxaati furi doona dadka joogtada biyaha u hela kuwa kale oo maalinta muxuu ahayday maalin dhaafka waa cabana waan sheegay hadalkay galabtana si xoog lahan ugu jirnaa sanadkan 26 inaan ka bedelno markii hore iyadoo la yiri biyuhu idin ma gaari karaan ayaan xoog badan isugu geynay kharash badan gelinay inay helaan maalintiiba labadii maalmood maalin oo ay dhaansadaan haddana waxa xoog labaad yahay insha Allah taala si dhaqso leh inay ka gudbaan
maalin dhaafka ayaguna joogto oo helaan sida magaalada kale waa maasantiin waaya laakiin su'aal kale jirtay oo dadku ay la sacbiyeen waa tan aariyada waaye marka saacadda biyaha la furo kale aariya soo hormarto lacag dadku kordhisaa la yiri taa ka waran waa run ninka la yiraahdo samow hadalkaas doodaasi dood baan ka qabaa yani arinta ku saabsan aariyada annaga saacadda tan waxaa loo sameeyey oo kambanigii sameeyey oo aan ka soo gadanay u sameeyey in dareera dhex maro inay aariya dhex marto maba loo samaynba waxaa loo sameeyey biyo markay dhex maraan inay xisaabiso marka saaxiibkay samow ha hubiyo horta saacaddii ma waxay u xisaabisay wax aan jirin mise waxay u xisaabisay markay biyihii dhex mareen ayay u xisaabisay annaga waxaan qabnaa inay saacaddu ay xisaabiso markii dareera dhex maro dareerahaasaana loogu talagalay hadday halowdo oo xafiiska la keeno oo dadka farsamayaqaanka arkaan inay halaysan tahay waa laga bedelaa qof kasta marka laakiin hadday saxan tahay aariya ma xisaabiso dareerahaasay xisaabisaa waa mahadsantiin waayahay aad baad umahadsan tahay dabcan shirkaduhu way isdifaaceen waxaan ku laaban lahaa bulshada halkan fadhida iyagoo laftirkoodu waxaan codsanaynaa marka waqtiga aad buu u kooban yahay waa xilli habeen waxaan codsanaynaa in waqtiga la soo koobo oo su'aalaha min hal laga dhigo maadaama dadka ay badan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa saddex qof la soo raaciyo wiilkaas shaatiga gudan baa gacan taagay wasaaradda iyo labada maareeye ee su'aalaha iyo u soo diyaar garoobay araahda dadweynaha intaas markii laga tago dhowr su'aalood baan qabaa su'aalaha ugu horeysa waxay tahay wasiir waxaad noo sheegtay tartankii dhacay in guddi toddoba ahayd oo wasaaradaha ay soo dirsadeen iyo shirkadaha ay qayb ka ahaayeen ayagana wax qiimeyn ay sameeyeen sidaasna qiimeyntii ku dhamaatay dabcan dadkaas kulli waxay ka socdeen dawladda iyo shirkadihii markaas qaybta ka ahaa bulshada reedka qayb kama ahayn marka laga tagana dad magaalada joogay ahaayeen ama rexmayod ah marka laga hadlayo confidentiality-na waxay tahay dad aan la aqoonin in ay monitoringkaas ama sameeyaan evaluationkaas because haddii aan la garanayo gurigaan deganahay magacayga telefoonkayga shaqadeeda waxaa fudud in la gato ama maxaad diratee wax la ii ballan qaado anoo shaqaale dawladeed ah ama shakhsi kale oo ka shaqeeya shirkad way fududahay in lacag inta aan ku shaqeynayo 5 sano hal mar la ii ballan qaado marka sidee ku hubiseen in meeshaasi uusan musuq ka dhicin waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxay tahay shirkadahan korontada iyo biyaha oo sida gabadha ay sheegtay waa Kismaayo iyo Jubbaland dhowr shirkadood baa maamulo sida marka laga reebo Muqdisho iyo deegaanada kale oo shirkado badan tartan marka monopoly bay shirkadahan ku raaxaysanayaan ama ay haystaan ma dhihi karaa dawladdeena ay raali uga noqotay waa midda labaad midda saddexaad shirkadahan weydiin lahaa oo ah shirkadan caashaatihiin deegaankiini dadkiini baad ka shaqeysanaysaan xaqaan ugu leediin idinkana waxba xaq leedin ku leeyahay oo ah sanadka marka uu dhamaado ama muddaba in aad bulshada wax ku celisaan marka laga tago qaaraanka ee dawladda iyo meelaha kale leedin kaga soo qoro maxaad bulshada reer Kismaayo iyo Jubbaland ku celisaan oo aad noo sheegi kartaan leedihiin anagoo isxilqaanay ama macaashkii dawladda dadkeena aan ka macaashnay waxaanan ku celinay waa taa shirkadaha ta saddexaad dabcan biyaha waxaa lala xiriiriyaa khilaafaad marka Afrika la joogo waddankeenana waxa waaye kuma sii jiro oo khilaafaadkii dagaalada ka dhashay coladaha biyaha ka dhasho laga soo bilaabo meelaha iraha biyaha waraha iyo biyo qabateenada iyo ceelasha iyo hadda oo casri la gaaro shirkadihii dabcan tartan iyo khilaafaad uu ka maxadiratay ka dhex jiro dhowr sano ka hor waxaan xasuustaa galbeedka Kismaayo in khilaafaad la xiriirinayo biyo ma dhihi karo way asal bay u ahaayeen laakiin annagu waxaan nahay bulshada waxaan qayb ka ahayn xalinta khilaafaadkaas dad yowgii khilaafaad ka dhaxeeyay markii aan maxaa diratay u tagnay waxyaabaha soo baxay waxaa ka mid ahayd in biyaha ay qayb ka ahaayeen khilaafaadkaas oo shirkadaha qaarkood ay qayb ka ahaayeen isla la xiriirinaya ma hubna annagu laakiin dadku waxa ka imaanaya ka mid tahay haddana waxaan moodaa guux badanaa jira oo isla biyihii ku saabsan maxaa mechanism u diyaariseen xalinta khilaafaadka ah in aad ku xalisaan khilaafaadkaas inuu dhici karo ama concernkaas dadka ay qabi karaan aad u maasantiin bismillaah magacaygu waa Najma Cabdi Ismaaciil sidoo kale waxaa salaamaya ka soo qaybgalayaasha hadaa u gudbo su'aasha aan qabo waxa weeyaan
ما جيران قرشيال مستقبل أو يعني كينا يو أمرك لجارو ما قرشيال مستقبل أو كينا إن ترتن أما شركة كلا إمادان سوى كلا محيو قلات الدولة iyo wasaaradda inay hal shirkad oo ama biyo ama koronto inay magaalada dhan ay siiso adeeg maadaama uu ka dhawaajiyay maareeyaha uu yiri xafiis baa leenahay qofka haduu imaado qasab uu qaadanaya micnii shuruudeena $7 oo yar waxa saa u yar micnii anaga iskale soo marka waxay u eg tahay fad ama hafadin waa lagu fadsiina maadaama kaliya ah heesana meeshaan sisman qon kartaa wasiir baraki waxaa jira deegaan afmadow ku yaalo oo qiyaas ahaan u jira 2 kiiloomitir oo aan haysanin waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo aan haysanin wasaaradahan maxaa meeshaas idinkaga qorsheysan tan kale waxaa waaye afmadow waxaa laga hirgeliyey 2 ceel biyood oo waxaa meena dhowr sano ka hor waaye ceelashaas waxay noqdeen ceelal oo qaraar ah wasaaradda diyaar uma tahay inay biyahaasi macaaneyso si deegaanka uu soo gaaro waa maasantiin waa soo laabanayna markan dadka u soo laaban doonaa waqtiguna aad buu u koobay waxaan sanna in la soo koobo jawaabaha laftirkoodu wasiir barakiyan ku bilaabayaa su'aasha afmadow iyo su'aasha kale ee jalwa ku weydiiyey iyo najma soo dhow adoo soo koobaya way bismillaah su'aasha ugu horeysa waxay ahayd dadkuna inta badan ay ku weydiinayaan maxaa hal shirkad biyaha loogu dhiibayaa maxaana 2 shirkadood loogu dhiibeenin hadayna waxaan u maleynayaa markaan hadlayay qayb bay ka ahayd adduunka siduu u shaqeeyo iyo nidaamyada caalamka inta badan ayaa waxay tahay labadan service ee biyaha iyo korontadu dawladda ayaa inta badan gacanta kula jirta hal ruux bayna u igmataa mar kasta oo biyuhu ay noqdaan biyo dad tiro badan ay ku tartamayaan dadkaana way isku dhiig bixinayaan qarashaadkooda ay kordhinayaan matooradii baa la badinayaa shidaalka la isticmaalayaa la badinayaa biyuhu qaali bay noqonayaan haddii laakiin biyuhu hal ruux lagu ogyahay ruuxaasi ama kambanigaasi waxaa laga yaabaa hal matoor inuu isticmaalo hal layn inuu dhigto hal shaqaale inuu leeyahay dawladdu inay price-ka ay jaan goyn karto quality-ga biyaha inay gacmaha kula jiri karto waxaa la rabaa Kismaayaan joognaa waa magaalo weyn oo caasimada waa metropolitan weeye dad tiro badan baa ku nool inaan tusaale ka qaadano magaalooyinka dariskana la ah iyo magaalooyinka caalamka ah hadda halkan waxaa fadhiya aniga waxaan ku soo koray magaalo Minneapolis oo dhaho 2 xildhibaan baa hadda halkan fadhiya oo labaduba Minneapolis igala yimid xildhibaan Xidig iyo xildhibaan Xasan hal company baa magaalada aad aragtay ee Minneapolis milyanka ruux joogo hal company baa biyaha bixiya hal company baa korontada bixiya midna waxaa la dhahaa Minneapolis Utility Company midna Excel Energy baa la dhahaa korontada hal mid baa bixiya magaaladan dad noogu dhow ee Nairobi korontada waxaa bixisa KPLC Kenya dhan hal company baa bixiya Kenya Power Lighting Company baa la dhahaa magaalo kasta laakiin hal company baa biyaha bixiya waxaa loo sameynayaa arrimahaasi in dawladdu waxaan waa kheyraad dabiici ah weeye waa service asaasi ah waaye dawladdu inay ay maamusho ay controlsho price-ka ay jaan goyso wixii capacity ee company-ga lagu kordhinayana ay dawladdu ay garanayso cid ay u dhiibayso iyo sida loo maareynayo annaga marka waxaan galnay inaan magaalada Kismaayo aan u maareyno sidii biyaha dadka ay uga qabeeli lahaayeen biyo raqiisan ay ku heli lahaayeen taana kaliya waxaan ku fulin karnaa inaga oo hal company biyaha u dhiibno deegaan kasta luglo hal company aan u dhiibnay Dhobley hadaa la idinkaga sheekeeyay dhowr iyo 10 company baa ka jiray dadkuna oon bay u dhamaanayeen maanta hal company baa ka jira dadku biyaha way ka dhargeen balad xawo dhowr company baa ka jiray hal company bay leeyihiin doolow dhowr company baa ka jiray hal company bay leeyihiin marka biyuhu ma aha dukaanna ma aha grocery iyo wax la gadgadayana ma aha waa kheyraad dabiici ah weeye waa kheyraad asaasi ah waaye dadka bini'aadanka waxa kaliya aysan laantood noolaan karin waaye marka waxa loo baahan yahay dadka in loo maareeyo qiimaha la dhimo price-ka ugu yar ee ugu raqiisan ee dadka lagu siin karana la hirgeliyaa loo baahan yahay hadday gacmuhu ku tira bataan price-ku kor buu u kacayaa qiimuhuna wuu beelayaa magaaladan tusaale hadda u soo qaata shirkaddan aan tusaale u soo qaadanaya lane baa u yaala koronto ah lane-kaasi waxaa laga yaabaa $2 milyan inay ku dhigatay baa laga yaabaa shirkad kale taa ayadana lane garab dhigatay $2 milyan bay ku dhigatay dadka reer Kismaayo marka waxaa laga dhaadhicinayaa
dhowr kambani haddii la helo korontadu way ku raqiisaysaa bal aduu isweydiin ninkana dhowr milyan baa ka gashay kana dhowr milyan baa ka gashay goormay korontada raqiisin karaan hadday laakiin labadu intay qarashkoodu isku darsaan hal layn ay dhigan lahaayeen korontadu price-ka maanta ii joogta ka yar baa la geyn kari lahaa marka taa halkaasaan kaga baxayaa guddi naga madax bannaan buu ahaa guddoomiye cabdifataax confidentiality warqada ah bay siixeen waqtigii ay jawaabta la soo baxeen ilaa iyo maantadan intaan ka shaacinaynay hal maalin bannaanka lagama maqal ah waqti frob ayaan ogeyn cidda ku guulaysatay biyaha cidda qaadatay guddigaasi guddi ammaanan waaye waa guddi ilaaliyey mas-uuliyaddii loo igmaday waaye riboodkooduna nin walba gooni buu usoo diyaariyey hay-adihii ka rabayna uu ugu diray 7 guddi ah oo kala duwan oo kala hay-adood inay hal ribood soo saaraan oo ay dhahaan shirkadda jubba ku guulaysatay inaysan fududeen waad garan kartaa marka annaga ma hayno wax oo faragelin ah ma hayno wax musuq maasuqa ma hayno processku waa ku qanacnay aniga waa laga ilaaliyay ka wasiir ahaan iyo wasaaradayda iyo ragga siyaasiyiinta oo dhan waa laga ilaaliyay kaliya waxaan ku lahayn 2 rool wuxuu ahaa markii aan tenderka furayay oo boxka furayay oo shirkadaha weydiiyoon yiri ma ku qanacsantiin waxa meeshan ku jira inuu sax yahay roolka labaadna wuxuu ahaa inaan shaaciyoon dhaho guddigii madaxa bannaanaa ee la yiri biyaha Kismaayo ka soo tala bixiya soo review gareeya inay dhammaantood isku soo wada raaceen inay shirkadda Jubba noo noqoto shirkadda biyaha aan ku wareejin xalinta khilaafaadka waa kaalin loo baahan yahay in la sameeyo annagu waa helnaa wixii complaints ah mechanismkii lagu xalin lahaa khilaafaadka in la qeexo la haysto lana fulin karo anigu waa taageersanahay waana ka shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa insha allahu tacaala waa mahadsantahay ani su-aalahayga intaas ku eegyihiin baan u malay afmadow ninka odayga ah ee dhallinyarada ah cafwan أقيم شوية هل سكن مركا إن deegaanka afmadow iyo degmada afmadow waan haynaa ribootyada isuduwo ayaa noo jooga degmada korontadana wuu noo joogaa biyahana wuu noo joogaa caadiyan ceelasha xogtooda oo dhanna waa horaan soo aruurinay ceel kasta iyo deegaan kasta baahida ka jirta wasaaraddu way haysaa waxaa jira platform ama archivia ay wasaaraddan leedahay oo degmo kasta xogteeda aan ku aruurino hay-adaha badanaa deeqaha bixiya iyo kuwa aan la shaqaynaba baahiyada waa horaan u gudbinaa aan rajeynayaa si gooniyana waxaan jeclaan lahaa inaad agaasimaha iyo maamulka is aragtaan specifically detailska aad siiso wixii aan ka qaban karnay ee tabartanada ah waa ka qabanaynaa horeyna waa uga qabanay afmadow shaqooyin badan aan ka qabanay haddana waa ka qabanaynaa insha allahu tacaala waa mahadsantahay waayahay wasiir baraki aad mahadsan yahay sida wanaagsan wax noogu faahfaahiyey laakiin dadka qaar waxay isla yihiin wasiir dawladdu badanaa waxay difaacdaa shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay inkastoo dadka qaarkii ay su-aalahaas badankood ka guuxayso badanaa lama arko wasaaradda biyaha ama shirkadaha ayraada ama dawladda qaybaheeda kala duwan oo shirkadaha si gaar oo la xisaabtamayso waad mahadsan tahay kaysaan siinayaa shirkadda korontada ee Wesco ayaa su-aal la weydiiyey ma jirto su-aal la weydiiyey najmo fad ama hafadin وايا تاك جواب بركة عليس معقول واي لكن وحنا شيء أو ما قلت واحد كجوابي كرتي وحكلا كل جرو أنت أنا كلا وحواي أنت حساس ها ممكن قفك بركو واجبات على كلا قاعدنا قفك كرتون بركو قاعدنا هشيس إلا قلوا مركا واحد لقى جوابه هذا واحد ممكن تدب واي واحد كستاك أنا لنكره marka abaayo insha Allah waa salaamaya insha Allah biidillah karim kaysu ka helbaystay aad u baadsan yahay dhamaan wad maasantihiin inta ka soo qayb gashay munaasabadan ama shirkan balaaran waxaan u mahadcelinayaa mar kale dhamaan ka soo qayb galayaasha barnaamijkan oo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dawladda Jubbaland ay fursad u siisay shacabkeedu inay su'aalo weydiiyaan shirkadaha adeega korontada iyo biyaha bixiya oo dad badan ay cabasho badan ka qabeen laakiin meel la marsiyo la waayay balse caawa in badan oo halkan fadhida ay jaanis u heleen in su'aalahaas ay weydiiyaan waxaan u mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta dawladda ee halkan lagala fadhiyo heer federaal iyo heer dawlad goboleedba su'aalaha dadkan gelina markan
ها shirkaduhu lacag qaataan inkastoo de canshuur ay bixiyaan oo canshuurta dadka lagu celiyo soo dhaw wasiir haye ma waxa la siinayaa kaysaye السلام عليكم ورحمة الله عبد الفتاح وما صنت بالشدة وحبان كعلنا ودوين كل دسايو وحيابها مارتي دتك سيدا جاسكا سيدا جاركا أو لبن أو كليو حيابها أن كعلنا ويجران مركا إن شاء الله هو أرتا ويجرته أنا حقيقة وحي وينا هذا الباطية فيري أنا وعك ورقبا شركة كورنتا قارن معها هذه قدومي هل دقيقة سك أنا وعن كور قبا شركة كورنتا هي شركة بيها بقى حرمها دنت الجود هذا تاكو الدولة إم بدن أي كورنتا بلا شخصية وعن سنة كله ويد أنا لبعض قوي $1 مليون oo ay ku leeyihiin dad kala duwan iyo bulsho kala duwan iyo qaybo kala duwan oo degmada Kismaayo ah oo ay leeyihiin lacagtani way naga maqan tahay wasiiro adigan koosi maanahay bal nala dayday marka shirkaduhu ani waa ka warqabaa meelo badan bay koronto siiyaan oo dan guud ah oo iyaguna ay xisaabsanayaan waayahay jubba laftirkeedu dadku maxay ku celisaa shirkadda biyaha waxaan siinayaa hay-ad arsadow wadhawahay waa mahadsantihiin walaale horta shirkadaha waa sax qofka bini aadanka qof kasta waxaa laga rabaa inuu wax ku celiyo bulshada naftigeeda ninka bariiska gadaya ninka burka gadaya adiga bulshada maxaa ku celisaa qofkaagan hadda su'aasha weydiinayo bulshada ma dhib baa ku tahay mise dheef baa ku tahay waa wax qof kasta laga doonayo laakiin markaan u hadlo Jubba Water ahaan runtii wax badan baan ku celinaa bulshada hadda waxay og tahay wasaaradda oo wasiirada fadhiyo dhan ay og yihiin qaarkood dadka baadiyaha banaanka ku ooman in loo dhaaminayo biyo lacag la'aan oo booyadaha loo dhaaminayo la gaarsiinayo dad badan oo hadda xoolihii iyaga ooman yihiin waa wax celin markay shirkadu dad shaqaaleynayso bulshadii waxbay ku celisay markay canshuur bixiso bulshadii waxbay ku celisay markii laami la dhisayo contribution ku soo darsada la yiraahdo dawladda hoose inta u timaado lacagtii bixiye la yiraahdo waxbay ku celisay xarumaha markay siiso waxbay ku celisay masaajidka lacagtii laga qaadayo bulshada markii lacag aan ahayn laga qaado oo loo dhaafo waxbay ku celisay wax aan tirin karna ma aha runtii waana wax sadaqa ah oo dadkii xoolaha laha ay sadaqadaysteen way oo ay la bixeen dadku waa maasantii waayahay aad maadsan yahay Khaliif Salaaman haye ku bilaabaya magacayga Cali Maxamed Aadan su'aashan waxa weydiinayaa shirkadda korontada ee Wesco goorma ayaa la filayaa in koronto joogto ah 24 saac maalintii ama 7 maalmood isbuucii ay gaarto dhammaan degmooyinka Jubbaland maadaama hadda uu shaashada ka arkaysaan sida hagaajinayo solar oo magaalada kii loogu talagalay ma aha in muhiimada la saaro magaalada Kismaayo oo kaliya dhammaan degmooyinka Jubbaland iyo deegaanada ku xiran waa in la gaarsiiyaa su'aashaas ayaa wata su'aasha labaad oo ah maxaa sabab u ah in ay magaalada ka jiraan hal gaari ama laba gaari oo dabdamis ah maadaama ay jiraan goobo ganacsi oo badan marka in badan waa aragteen oo goobo ganacsi dabka kacay maxaa wasaaradda qorshooga ah sidoo kale shirkadda Wesco maxaa uga ah iyo dawladda Jubbaland ayadana maxay ka qabtaa mudana wasiir maadaama uu haatan taagan yahay maadaama haatan socdo mashruuc biyo gelin ah degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda isla markaana ay jirto baahi weyn oo dhanka biyaha ah ma mashruucani Kismaayo oo kaliya ayuu ku kooban yahay mise wuxuu qorshu yahay in laga hirgeliyo dhammaan degmooyinka ku yaala jiinka wabiga su'aashiida xigta maadaama waqtigu kooban yahay waxaan weydiinayaa shirkadda Haadweyne waxaa jirto shakhsiga markii oo biyaha lacagta uu bixin waayo waa laga jartaa sidaan wada ogsoonnahay kadib markii la jarto waxaad qofka markaa usoo fasaxaysaan ka qaadaan lacag $10 lacagtaasi maxaa ka lifay inaad ka qaadaan hooyada Soomaaliyeed ee shalay uga jarateen lacag la'aan darteed wasiir Axmed Xuseen Baraki waan kugu bogaadinayaa kartida aad muujisay oo fursad aad noo siisay inaad baahiyada ka jiraan inaan ku sheegno marka mudane wasiir degmada Badhaadhe waxay ka kooban tahay tuulooyin badan waxay ku fadhiyaa dhul baaxadiisu yahay 360 kiiloomitir si aan ogsoonay nolosha bini'aadamku waa biyaha hadaysan jirin nolol ma jirayso saas awgeed baahida biyaha warbiyood ma dabooli karaan wasaaradda inay
in badan bay soo shaqaynaysay adiga wasiirkii ka horeeyaba dhulka intiisa badan waa nabad aniga laba su'aal baan qabaa su-aasha koowaad waxaa weeyaan waa maxay sababta ama caqabadaha hortaagan in deegaanka kulbiyo laga hirgelin waayo ceelbiyood riig ah oo dhammaystiran midda labaad waxaa weeyaan wax fursad ah looga faa'iideeyo tuulada kulbiyo ma jiraan ama guud ahaan tuulooyinka hoostaga degmada Badhaadhe waana mahadsantahay wasiir su-aashu waxay tahay biyuhu waa meelaha ugu badan ee khatarta gelin kara caafimaadka bulshada waxaan ognahay oon waayo aragnimo badan u leenahay inay adag tahay xataa dowladaha horumaray iyo shirkadaha aaladaha casriga ah haystee horumaray inay ku adag tahay inay maintain karayaan ama ay mar kasta hubaan saxada iyo wanaagga iyo caafimaadka biyaha marka wasaaraddu ma leedahay jadwal ee ay biyaha ku fiiriso inay standardkii la cabahayay ay mar kasta miid garayso bishii hore la testgareeyay ama 6 bilood ka hor baa la controlay macnaheedu ma aha shirkadu way maintain garayn kartaa standardkaas marka waxaa loo baahan yahay in mar walba si joogto ah oo xataa random oo aynan war ka haynin la control oo la fiiriyo quality-ga biyaha ay dadku ka iibinayso marka wasaaraddu jadwal ma leedahay ay biyaha ku controlsho ay ku fiiriso saxanimadooda iyo caafimaadkooda hay-adduse imise siday biyahan u nadiifisaa way adag tahay in biyo nadiifa dadka laga iibiyo ma jira regiment iyo tallaabooyin ay qaato oo biyahaas lagu hubiyo inay nadiif tahay cabitaan ay standardkii mid gareeyaan wad mahadsantihiin labo aan su'aal ahayn laakiin aan rabo in wax la igala qabto waay mid waxay ku socotaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka midna waxay ku socotaa electriga iyo korontada haddaan soo hormariyo midda korontada waxaa jirta korontooyinka dhibaato badan baa dadweynaha ka haysta waxaa jirta inay korontadu qaraxdo marar badan dadkii shacabkiina wax yeelo weyn ku gaaraan taasina dabka kaco dabkaas kacayana in loo helo baahida ku saabsan in dabdamis waxa aad bixinaysaan ee idinka aad dadka ku celinaysaan inaad nagula celisaan ood wax nagala qabataan haddaad korontada tihiin inaad dabdamis nagu caawisaan oo wax alla wixii idinka caawis idinka ah aad ku caawisaan dabdamiska si dadkii ama suuq ha ahaato ama guri ha ahaato maadaama uu dabdamis meeshii ku yar yahay inaad nagu caawisaan oo idinka maadaama aad tihiin inaad nagu caawisaan wixii karaankiina ah taasi waa mid talabaad oo aan wasaaradda rabana waxaa waaye sanadkii marbaa waxaa dhacda fatahaadda webiyada marbaa waxaa dhacda biyaha oo yaraada marka taa iyadana inaad ka sii tashataan oo inta aanan biyaha naga go'in aad ka sii tashataan oo aad u sii dadaal gashaan oo aad sii ogaataan labada arrin baan rabay inaan idinla wadaago marka nagu caawiya intaas xildhibaanada ayaa u dambeysay way mahadsan tahay jawaabihii baan markan u gudbeynaa waxaan ku bilaabayaa kayse oo hal su'aal u taalo xildhibaanada ay ku weydiisay dabdamiska la xiriira soo dhow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan filayaa labada shirkadoodba dhowr mar iyo degmada waa isla soo qadqaadeen meel bayna maraysaa insha allahu arrintaas waxaan u malaynayaa weli maysa dhammaan laakiin waxba aan uun ka geysanaa mar walbaba insha allah qorshaheedana dhowr maraa lasoo bandhigay meeshuu uu gaarsiisan yahay hadda oo magaranaysaa final waaye kuma dhihi kara laakiin qorshahaas waa ka shaqaynaynaa insha allah biidni illahi kariim midda oo waxyeelada sharciga hadda ay wadaan wasaaradda kaasaa soo koobi doono sababtoo ah tayada alaabta noo timaado baa waxay qayb ka tahay inuu dabka ka kaco meelaha qaar marka waxaan sugaynaa sharcigaas alaabta tikada ka soo degta ama tayadeeda in la ilaaliyo marka haddii tayada alaabta la ilaaliyo dab ma kacayo insha allahu wax walba okay noqonayaan wasiirkaan u dhiibaya hadda insha allah waayahay wax ma la weydiiyo su'aal intaanan qaadan waayahay garaad wuxuu yidhi biyaha la jarayo
iyo ganaaxa hooyada Soomaaliyeed ee waxba haysan lagu ganaaxayo biyihiina laga jirtay iyadoo lacag la'aana maxay ku dhacday waayahay garaad waa mahadsan yahay hooyada Soomaaliyeed horta maaha ereyga hooyadii iyo aabihii iyo adeerkiiba hadduu sharcigu jiro wuu ku shaqaynayaa marka hooyada waxaa dhici karta hooyadii markay noqoto inaan laga jarin laakiin markuu garaad iyo noqdo nin xoog leh in laga jaro taasina waxay ku imaataa qofkii biyaha loo keenay waad maqlayseen 30 kilomitir baa biyihii laga keenay intaanoo shidaal baa ku socday kambanigu wuxuu u baahan yahay inuu socdo hadduu kambanigii aysan cidna caawinaynin dadkiina ay lacagtii yarayd oo ay bixinayeen ay bixin waayaan dee haddaan laga jarin ma soconayo marka arrintii way soconaysaa hadhow biyihii oo dhan marka inay fadhiistaan ma aha in hooyada loo nixi waayey ama qofkan waxba haysan loo nixi waayey laakiin duruufta waxay keentay in qofka biyaha laga gooyo si uu lacagta u bixiyo oo uu u soo hormariyo markii biyaha loo xirayo marka oo loo samaynayo biyo xiridii lacagta yar oo laga qaado waxa weeyaan qofkan biyaha u xirayo oo dhici karto inuusan shirkadda u shaqeyno shaqaale joogta ahayn ka dhulka qodayay iyo kii ma garanaysaa wax uu connect gareynayo dadka xamaalatada soo xoogtaga oo subaxii shirkadda yimaada ayaa lacagta lagu bixiyaa marka shirkaddii iyadoo $7 ka qaadaysay oo lacagtii ay ka qaaday ay 7 ahayd isla markaas adigana aad biyihii bixin weyday oo adiga ay khalad xagga ka yimi $7 ay biyaha kaaga qaaday kuma bixin karto qofka biyaha ku xiray kuma bixin karto marka intaas ay ku timi mana ahan xariis la'aan ee waxa weeyaan systemka inuu inoo shaqeeyo oo inoo socdo weeyaan waana inuu de qofku wax la kulmaa hadduu lacagtii iska bixin waayo oo wixii muhiimadoodii fahmi waayo intaa weeye waa mahadsantiin waayahay aad baad mahadsan tahay wasiirkaasina ayaa waqtigan uu yar yahay wasiir Roosokoob dhowr su'aalood baa miiska ku saaran oo la weydiiyey soo waay bismillaah su'aasha koowaad xildhibaan xasan ayaan u maleynayaa ayaa weydiiyey waxay ahayd caafimaadka biyaha xildhibaan biyaha waan tijaabinaa wasaaraddan waxaan u maleynayaa shirarkii sanadihii hore aan ku soo bandhignay waagii aan imanaynay biyaha waxaana loogu soo testgareyn jiray Nairobi hal jawaab bas soo noqon jirtay jawaabta waxa weeye not fit for human consumption biyahan bini'aadan ma cabbi kara tan haddii aad tijaabiso not fit tan jubba haddii la tijaabiyo midka oo ceelasha oo biyaha laga cabo kan dhoobley kan afmadow not fit for human consumption marka wixii markaan ku wareernay baa waxaan niri waxaan sax ma ahay bal horta shaybaarka laftirkiisa maan samaysano dhinaca midigtayda ah waxaa ku yaala shaybaar ay dowladda Jubbaland leedahay oo ka horumarsan shaybaar kasta oo Soomaaliya ku yaala qalabka yaala waa almost $1 million qalab ah ayaa yaala waxaa laga soo procure gareeyay Denmark iyo Europe laga soo procure gareeyay Aamina Awe gabadhaas quruxda badan ee Aamino ayaa gacanta ku haysa iyadaa ka lab manager iyadaa ka iyadaa test gareysa biyaha xildhibaane si random ah bay u test gareysaa biyihii halaysnaayoo dhan way hagaajisay shirkad walba way la shaqaysaa wixii ka qaldan bay la toosisay haddii cusbadu ku badneed siday u dhimi lahaayeen haddii koloriinka ku yareed siday ugu dari lahaayeen waxay isla gaareen ilaa iyo sanad iyo 2 sano oo shirkadahaasi ay maalin walba shirkad walba la kulmaysay oo lahayd biyihiina ciladana laga helay finally hadda waxay haysataa mandate awood bay haysataa ay shirkadaha biyaha ku xiri karto haddii ay cilad ka hesho shirkaduhu way la shaqeeyaan biyahoodu ayaga uma keenaan iyadaa soo qaadata qasabaday ka soo qaadanaysaa suuqay ka soo gadanaysaa biyaha Jubba inta badanna hadda waxaan u maleynayaa in la turxaan bixiyay ciladihii biyaha laga heli jiray waxaa sidoo kale dhinaca bidixda ah isna ku yaala oo wasaaraddan ay hagaajisatay baqaar weyn oo asna ay ku jiraan qalabka biyaha lagu sifeeyo kan meelaha remote-ka la geyn karo baadiyahoo kale waqtiga shuban biyoodka uu jiro kale chlorine hadday tahay aquatab hadday tahay shabiga Soomaalida bahalkay u taqaano soo waxaan haysanaa enough materials qalab nagu filan oo kala duwan
kuwii emergency-ga la deploy gareyn karay oo la geyn karay meelaha abaaraha ay ka jiraan iyo kuwii biyaha lagu nadiifin karay labaduba waan haysanaa codsi bay dadku soo dalbanayaan codsigaas iyuunbaa waxaa la marinayaa process yar oo u yaala ruux alla ruuxii u baahanna waa la siinayaa dowladda Jubbaland baana iska leh wasaaradana iska leh shaybaarka marka halkaas aan kaga baxayaa biyo gelinta Kismaayo aad u sameeynaysan mid la mid ah ma ka sameeynaysan deegaanada kale ay su'aasha kale ahayd biyo gelintani waa biyo gelin weyn mashruuc aad u weyn oo Soomaaliyana ku cusub weeye laakiin mashaariic ka yar ayaan sameeynaa mashruuci laga sheekeynayay ee luglow aan ka hirgelinay ee hadda la wado waa mid Kismaayo kan imanaya u dhow weeye oo deegaanada ay biyo ka cabaan doolow ceelashii laga sheekeynayay ee 60 mitir iyo 50 mitir waa biyo gelin weeye waxaan ka waramaa bangiga African Development Bankiga lacag tiro badan buu u hayaa magaalada Baardheere oo uu leeyahay mashruucan Kismaayo aad ka hirgeliseen mid la mid ah yaan rabnaa inaan ka hirgelino feasibility study baa la sameeyay waana wax soo socdo oo la rajeynayo dhowr ka sano soo socoto in ay la helo fankiisi taana halkaas aan kaga baxayaa xildhibaanadu waxayna weydiisay waqtiga roobabku biyo qabatiin ma la sameeyo oo biyaha badda isaga dhamaanaya cabaar kadibna laga ooman yahay maxaa xalo u haysaan wallahi xildhibaanada that's the elephant in the room waa su'aasha ugu culus waaye Soomaaliya oo dhan bay dhibaatada ka jirtaa waxaan cadibayana inta badan waxa weeye accesskii iyo funkii weeye haddii lacagta la hayo saaka waxaan u maleynayaa magaalo kasta iyo stream kasta iyo tog kasta iyo meel kasta oo biyo wada waxaan ka qaban lahayn biyo qabatiin laakiin Rome was not built in a day Rome hal maalin laguma dhisin waxaan u maleynayaa inta biyo qabatiin ay wasaaraddan sameysay sanadkan kaliya 3 miyaheed mise 4 baan u maleynayaa in la soo bandhigay sanadkan kaliya waxaa la sameeyay Koronuusle magaalada waxaa laga sameeyay biyo qabatiin Qarsa mid baa laga sameeyay Biroole mid baa laga sameeyay Jiroole mid baa hadda ka socoto Balad Xaawa mid baa ka socoto sanadkii hore Doobley mid baa laga sameeyay Diif mid baa laga sameeyay marka inta tabartanada ah waa xarbinaynaa laakiin de baahida lama dabooli karo ikaadi wax laba shay hal wax baa ii dhiman dabdamisku wuu soo noqnoqday dabdamisku wuu soo noqnoqday wasaaraddan ma aha waxa ay ka shaqeysa ma aha degmada ayaa dabdamiska iyo hoos jooga degmaduna waxaan ka warqabay inay soo gadatay hal dabdamis booliiska Kismaayo qaybta hadda tagtana dabdamis ayaa dhex yaala airportkuna dabdamis ayaa dhex yaala marka saddexdaasi ma nagu filan yihiin mise kuwa ka badan baa u baahanahay waa su'aal wili furan waaye laakiin dhowr sano ka hore hal dabdamis magaalada ma yaalin maanta laakiin aniga waxaan ka warqabaa 3 dabdamis oo labana ay degmada Kismaayo taalo midna airportka u yaalo waxa ii dhiman raalla hooya waa gabagabadii marka si aanan mar dambe u hadlin waxaan rabaa inaan closing remark ugu dambeeyo sameeyo forumkani iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan si wadnahanaga ka soo goday ayaa idinku mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan nala aragtaan waxaan hayno waxaan ku hanweynahay anoo u hadli karo wasaaraddan iyo dawladda inteeda badanba waxa annagana soo maro waa wax itus oo itaabsi ah wax aan ka xishoonayna inaan dadka la hor imaanna ma aha wax aan ka cabsoonayna dadku inay su'aal naga weydiiyaanna ma aha haddii maanta aan helna lacag la leeyahay ceel ha lagu qodo ceel unbaa ku qodi karnaa dadka wax moogtahay siyaasiyiinta iyo wasaaraduhu wax kala laga aaminsan yahay waxa la dhihi wasaarad hebel wax bay cuntay iyo wax bay dhunsatay iyo la dhihi mararka qaarkood baa waxa weydiiyaa su'aala war maxaa la dhunsan karaa systemka weyn ee yoontooy ka soo socday ee Kismaayo imanahaya lacagta ku baxaysana waa 7.3 million waaye cidii qaadatayna waa la ogyahay annaga marka roolka aan ku leenahay waxa waaye inaan wixii site selection ki sameeyno meeshii ku haboon aan u qoondayno aan company ku controlna aan raahna sana u qabanaysa ilaa ay dhameystirkiisii aan daba soconno marka forumkani oo kale annagu waa ku hanweynahay inaan sameeyno horeyna waa u sameeynay sanadkana waa sameeynay sanad walbana wuxuu noo noqon doonaa tradition buu noo noqon doonaa hadduu ilaah awood la yiraahdo ugu dambeyntii marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo agaasimayaasha iyo howlwadeennada kala duwan iyo dhalinyarada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo wakaaladda biyaha ee dowladda Jubbaland oo waqti geliyay inay suuro geliyaan stagekan aan fadhino iyo masraxan aan fadhino
iyo qabanqaabadii iyo wax alla wixii dee maanta meeshan lagu soo bandhigay iyo shaqooyinkii tirada badnaa ee aan soo xiganaynay waxaan u malaynayaa la-aantood wasaaraddan maysan ifi lahayn waqtigan meesha aan fadhino iyo quruxdan meeshan aan ku fadhino dad tiro badan baa waxay sameeyaan inay hoteello ay ku qabsadaan eventi noocan oo kaleeta aniga I prefer this in dadku ay meel publica intay fadhiyaan hawada naturalka aan qaadan karno aan si interactive ah annaga oo live viewskanaga iyo fikradanada ku kala qaadan karna marka dhammaan waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha leh ee hawshan hirgeliyey anigana shaqadayda fududeeya maalin walbo curiyana mashaariicda mashruuc kasta oo aan maanta ka sheekeynay wiil iyo gabar meeshan taagan ama kuwa maqan oo kaamarada ka dhuumanaya ayaa fikirkii lahaa ku diriray designkii sameeyey BOQ-gii qoray deegaankii tegey meel aanan habbooneen usoo jiiftay yiri anaa keenaya xogta rasmiga ah ee magaalada Kamboni Buurga Haboor la yiraahdo Kulbiyo Hoosingo Doolow Diif meelo fara badan waxaan ogahay 2 week hore engineer ka socday wasaaraddan oo meel lagu xiray oo madax furasho looga qaatay lacag 200 oo kun oo lacag Kenya looga qaatay ninkaasi umuusan soconin dantiisa ah umuusan soconin xafiisku joogi karay shaqo wasaaraddan ayuu ku maqnaa shaqo meel laga qabanayay ayuu monitoring u tagay haddana meel cidla ayaa inta lagu helay baa waxaa la yidhi haddaadan lacag intaa leeg aadan bixinin xabsi baad gelaysaa marka dhallinyaradaas ayaan rabay inaan hortiinana uga mahad celiyo ayaga ayaa suuro geliyey shaqadan iyo shaqooyinka tirada badan ee wasaaraddan ka socda waa mahadsantiin halkaasaan ku joojinaya wow wasiirka aad u mahadsan yahay kasoo qaybgalayaashana laftirkooda waan u mahad celinaynaa waxaa la soo gaaray gabagabada barnaamijkeenan oo wasaaraddu ay markaasi ku qabatay xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mar kale iyo mar saddexaad waan idiin mahad celinayaa barnaamijkanna waxaa markaasi aad kala socon doontaan haddii ay beedmo telefishinka dowladda Jubbaland barnaamijkiina way nageyntaa